Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan daawadayaal idlahantiinba meel walba aad joogtaan. Halkani waa janarka wararka ee Alool Media TV oo aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee geyga Soomaalida iyo caalamka oo dhan. Qodobada aan maanta inii haynana waxa ugu waaweyn. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo isku shaandhayntii ugu balnaanayd abid ku sameynaya golihiisa xukuumadda maxay tahay ujeedada iyo waxa xilligan ku soo beegay xog cusub oo laga helay qaraxii Beirut iyo cidda sababteeda lahayd in dalkaasi lagu kaydiyo maandadii khatarta badnayd ee dishay boqolaalka reer Lubnaan. dal ku dhawaaqin markii ugu horeysay uu helay daawada cudurka loo caalwaayay ee COVID-19 iyo cidda uu yahay dalkaasi ayaad ku daawan doontaan warka. waa 12 bisha Abriil maalinimo Arbaca sanadkuna waa 2020. aynu ku bilownay warar aynu ka helnay ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegayeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku hawlan yahay isku shaandhayn weyn oo uu ku sameynayo dhammaan golihiisa xukuumadda sida hay'adaha madaxa bannaan, taliyayaasha ciidamada iyo golaha wasiirada. waxay wararku intaasi ku darayaan in madaxweyne Biixi uu ku dadaalayo in isku shaandhayntaana ay noqoto mid ka duwan kuwii hore maadaama dhowr jeer lagu canaantay in golihiisa wasiirada laga arag Somaliland loo dhan yahay. mas'uuliyiin oo xog waramay warbaahinta Alool ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen in ay macquul tahay in madaxweyne Biixi ku dhaqmo wax ka duwan qaababkii hore ee looga bartay. waxay sidoo kale xogtu sheegaysaa in isku shaandhayntan lala sugayo wasiirka arrimaha gudaha oo muddooyinkii dambe ku maqnaa degmada Ceel Afweyn isagoo oo ku soo foodlay magaalada Hargeysa maalmaha soo aadan. madaxweyne Biixi ayaa la sheegay in ujeedada ugu weyn uu ka leeyahay isku shaandhayntan ay tahay in la raali galiyo siyaasadda beelaha darafyada maadaama ay si weyn cabasho uga muujiyeen doorasho dalka ka dhacda iyadoo cabashada saami qaybsiga aan la eegin. waxa kale oo ujeedadu tahay in la bedelo xubno hore u qaadan waayay mabaadi'da iyo siyaasadda madaxweynaha. isku shaandhayntan ayaa laga rajo qabaa in ay dhacdo toddobaadyada soo socda. 4 bishan Agost 2020 waxaa caasimada dalka Lubnaan ee Beirut ka dhacay qarax sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo waliba burbur hantiyeed isugu jira. intii ka dambeysay qaraxaasi waxa ay xog kala duwan ka soo baxayaan waxa sababay iyo cidda mas'uuliyadda qaraxaasi qaadanaysa. xukuumadda talada haysa ee dalka Lubnaan ayaa intii aan lagu kalafin in ay iscasilaan waxa ay sheegeen in qaraxaasi ay sababtay 2750 tan oo kimikaalka loo yaqaan ammonium nitrate ah taas oo yaalay qaybaha qalabka la dhigo ee dekedda caasimada ee dalka Beirut. kimikaalkan ayaa loo isticmaalaa wax soo saarka beeraha iyo in aalado kale lagu daro loona isticmaalo in lagu burburiyo buuraha marka dariiqyo laga sameynayo. shacabka iyo warbaahinta dalkaas ayaa si weyn u cambaareeyay in tirada intaas leeg ee qaraxa lagu kaydiyo meel ay dadku ku badan yihiin muddo gaaraysa 6 sanadood. guddi loo xil saaray ayaa soo ogaaday in sanadkii 2013 uu kimikaalkan dalka soo galiyay markab laga lahaa dalka Russia. markabkan ayaa kimikaalka u siday dalka Mozambique isagoo ka soo qaaday magaalada Batuma ee dalka Georgia. xilli uu markabkan marayay badda Mediterranean ayaa waxaa la soo diristay cilad farsamo taas oo ku qasabtay inuu ku xirto dekedda Beirut oo markaasi u dhaweyd. markabkan ayaa waxaa baaritaan ku sameeyay ciidamada ilaalada dekedaha iyo kuwa customka waxayna go'aan ku gaareen in markabkani sido aalada halisa waxayna fasaxan shaqaalihii saarnaa marka laga reebo kabtankii ama naaquudii markabka oo lagu magacaabi jiray Master Brokefish iyo 3 kale oo sargaal kuwaas oo u dhashay dalalka Russia iyo Ukraine. Captain Brokefish waxa uu warbixin siiyay warbaahinta waxa uu sheegay in mulkiilihii markabka ay ku timid dhaqaale xumo xilligaas. waxa kale oo loo sheegay in alaab dheeraad ah ka qaadi doonaan dekedda markaas ay joogeen ee Beirut balse taasi ma suurtagelin oo waa uu buuxay markabku xilligaas. muddadii ay joogeen dekedda waxaa maamulka canshuuraha iyo kastamka dalka Lubnaan soo saareen in ay rabaan lacag dhan 200,000 oo dollarka Mareykanka ah taasoo mulkiilihii markabku awoodi waayay. waxayna kalaftay in xayiraad la saaro maamulkii la wareegaan markabkii iyo agabkii saarnaaba. qareena u doodayay kabtankii markabka ayaa codsaday in shaqaalaha dhammaan la fasaxo maadaama ay noloshoodu khatar ku jirto iyo in kimikaalka saaran markabka uu qarxo taas oo keeni karta inay dadkaasi halkaasi ku leedaan. maamulkii dekedda ayaa intaas kadib kimikaalkii la wareegay iyaga oo markabkiina iibiyay maadaama mulkiilihii awoodi kari waayay inuu lacagtii lagu soo rogay iska bixiyo. waxa uu Master Brokefish warbaahinta u sheegay inuu u soo jeediyay saraakiishii dekedda Beirut in haddii ay siiyaan 100,000 oo dollarka Mareykanka ay suntan dhaafi doonaan balse way ka diideen iyagoo rajeynayay in laga iibsan doono. wali Alool Media TV ayaa daawanaysaan. war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Russia ayaa lagu shaaciyay in dalkaasi Ruushka uu noqday dalkii koowaad ee helay tallaalka cudurka coronavirus. tallaalkan ayaa dhakhaatiir caalami ah waxa ay ka muujiyeen walaac iyagoo sheegay shaki weyn ka jiro maadaama la marin tallaabooyinkii loo baahnaa lana waafajin shuruucda u taala dawooyinka iyo tallaalada caalamka laga hirgelinayo.
dhakhaatiirta ayaa waxay sheegeen in xukuumadda talada hayse ee Vladimir Putin ay tartan ugu jirto in ay noqoto dowladda koowaad ee caalamka keenta dawada tallaalka ama cudurka coronavirus-ka. dhakhaatiirta ayaa waxay sheegeen in tallaalkani uu halis gelin karo aadamaha lagu duro maadaama aan la hubsan waxa uu dhib keeni karo. dhanka kale madaxweynaha dalka Russia Putin ayaa sheegay in ay tahay propagandada reer galbeedka ay ka faafinayaan dalkiisa, balse dawladdiisu ay marisay tallaabo kasta oo looga baahnaa iyo taxadir weyn oo uu ka muujiyay in tallaalkani noqdo mid anfaca dadkiisa maadaama aysan wax dhib ah u quudin in ay gaadhaan qof Ruusha. waxaana madaxweynaha Russia sheegay in tallaalkaasi uu ku tijaabiyay gabadhiisa. hadalka madaxweynaha waxaa si toos ah uga jawaabay Franciscus Bolas oo ah professor ku takhasusay cudurrada la midka ah COVID-19 iyo qaabka loo daweeyo. waxaana professorku sheegay in xukuumaddu aysan qaadin laba tallaabo oo muhiim ah, kuwaas oo kala ahaa in dad tiro badan lagu tijaabiyo iyo in waqti kala duwan tijaabo laga qaado. waxa uu sheegay in xukuumadda Russia ay ku kaliftay laba tallaabo in ay dedejiso, kuwaas oo kala ah in aanay rabin in ay lacag badan isticmaasho iyo in waqti dheeraad ah uu qaato markaas oo looga horeeyo in ay noqoto dowladda koowaad ee keenta tallaalka COVID-19. wadahan daawadeen intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warka aad ka daawanaysaan shabakada Alool Media. intaan warka xiga ku kulmi doono amaanaad.